maalmaha samee dhibtu suulaysiiyo siyasiga waqtigu soo sidaan arkaa siyasiga waqtigu soo sidaan arkaa xilka saara oo saara kasiya oo siya xilka saara codka siiya shirkan qiimaha badan nagu makansiiya ilaahaygaas mahad u sugnaamatay tolka xalayna martiqaada ee dheertu ee na soo dhaweeyana allaha barakeeyo aniga waxaan ahay ugaaskii reer afkaab waxaa socdaan afkaab 12 qoys buuqaaraanka ku qaybsadaa 12 qoys afkaab sonqaad baa socdaan aniga waxaan ku ahay ugaaskii reer afkaab baane 12 qoys afkaab sonqaad baan duqwe ani shakhsi uma lahi fidmaya xumaan uguma umaanin hadalkan waxaa iskaloo noo furi reer dalal oo afkaab u imaade oo wuxuu u sheegana maanta inuu meeshan ka sheego la rabaa waxaan ku soo dhaweyn hadalkan haddaan lahay duqi reer afkaab cabdi cali guhaad. assalaamu calaykum reerdheertu reer afkaab 40 ama 50 sano waxaa xukumaan 4 ruux 6 ruux bay ahaayeen allah u raxmado macalin buule horar iyo xasan mursal way dhinteen الله ونحرسته أفر علي أورهد الله صهرته وعبد الله دوغو عبد الرشيد عثمان إبراهيم هارون محمد لكن أفر الرئاسة كان حكومة سكنتم سنة سدح بنا لسعة أحمد شتا مد كلي هاري عبد الله دوغو كلي بعد هاي أنا مو أقولي حق بقول أقول هاي بيكوز ويل كيسة تاجنا وهو أركي إن لو عليه مرسد حمان معها لكن سدح لسعته هارون يا عبد الرشيد يا عثمان أفرار أحمد الراعين وذاته بالراعين هطنا وذاته وحده وإذن دعينا ناي سفرت أفقاب يعني كل قلنا عنك كلا سعرنا ماشي لوبة طيب بيها وبطانة عن راعنه سبب تاس سد حد مركز الراعين أفر كل تاجرة عبد الله دو أنا كحرة جالس وادي جرنسين مامول وادي جرنسين أنا كحرة أنا عارف مامول كره أفقاب أنا جو عن راعي أحمد أرح وكحرة عبد الرشيد حر راعي أحمد waxaan faahfaahinayaa sidoo wax u yaalo xasan qaar oo ku xigo Osman Faror wuxuu raacay Ahmed afarta hoose waxay raaceen saddexdii koro madaxdayda ahaa dheer afkaab dadka u taliye oo magta soo qaado oo maamul hayo afarta oday waaweyn waay labadii hore inta Allah u naxariisto waqtigooda way dhameeyeen kuwan afartana weli kama la bedelin jagada anaka reer afkaab uu mahadsan yahay haduu Ahmed noo qaaday waan soconaynaa lillahi Ahmed ma ka hadlayna anaka wax kala maran insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ردرتو دتك ما أنت يعني وحي رد يسوق أميين كهالله رأف قبورت أيك هال واجهك مسارنا أنا كأنت نوكل رهوا ما ندين هذا رد لو نوكل رهوا واحد سوكل رهوا كلمة موجي واحد كلا كيبر وما نكير رد رأف قبور ما نكير واحد كلا رهوا رد ومس كلا رهين رأف قبور ما نكير سأيده رأف قبور لقوم إيدي كرو mana aha in ayaga laba dhowr reer dal ayaga aan 18 bilood aan anaka ku jiray talada noo kala reeb inaan dhahno ku mashquulina ma ahayn wiilasha anaka ka reebnay anaka odayaasha ka reebnay ruux ka dooday oo wiilka oo aad ku adi aad dhashaad dudaan ninka asaga rab lagu mashquulinayo afgaab hadalka waa xaqiiqa tul adii jibril meelaha tagna waa loo sheegi muumin xasan waa loo sheegi nin aan loo sheegin ma jirto nin baa naga dooday سداد تضيع لو هتروح برا هل أنا قدر واحد كلام جرت وقف هو حد وحي نبى وحيري والماضي يريد قال لكم ويني ما دبت إليكم من حرسته ما المغرب قال لكم صاروا لي بير الرمي هذا زي تونت كنت شنو واحد نكال واحد وين اسكنها إلهي بصاروا لي كي أن سوق أني رف قبل رقاتي أو إلهي نسول عيد في الليل وجينا ما جربنا وجيتنا إلهي المكي وأنا أحمد محمد عبد واي أما ستة وينها سوق لي هي أفضل من أنو كذي أنا قدرت حق بان كله وانس أنا صار إتقانان بو ويلك هذا اللي قد وجه خيره طوال سنة نساء طوال أبال ملهمية رتيجة جيلة مركل الغدرة أوتا من جيل وأباهيا من وتريا حولها على سال لوكال بدلان لما نقول لي إثبات أشياء هدي أن رأف قاب حلقه إنتان أوكياني إيقاظ عن إلي نسيب كيسان إلالين إيقاظ عن إلي والمدنبي باقاله
ورسول إلهي متى قارن الإسلام بتهدين سو مصر كرتان إلما هذا الرجال وواو ذلنا كورا لا روا را أفقاب أنكو إذل بان bah iyo boqor iyo wadaad waxaan u keenay raafka inay naga qaadaan dadkan kule nin lama soo kala reebin ilma adeeryaal wax gaf ajiraaye afgaab yaan loo gafin waxaan soo reebnay oo tafaatiran baan anaga u keenay labada wiil hadal waay nin la nacsan ma jiro kan aan ku jareeyay nasiibkiisa raafgaab cawlaan alla doonaa dhahnay madambiga war madambiga ilma adeeryaal مؤمن حسن بامشة فديا نمغلا ويلكن صور هنا أحمد محمد عبدي شتاوى إلهي من الغباء حتى كورة هذا سينه إنه كورة هذا جاب كواسته كام حوجي كورة هذا قال لكن عقلي النفاس يوحنا له دن أحمد محمد شتاوى كدورا. السلام عليكم وما سنتي رجع الدمر وضدك ماشي معي صعد كان وحنصعنا أفكار صنقات بانوصعنا إلى دق إلما يلوبلي يمشي اللي له أمومو إن أنجارسينه قانكي وغير أفكار يرد على السكوة فقيل وهي كذا بين عليان تردي جبرائيل بانوصعنا قرينا هدف كاس هنوصعنا وهي عليان أوه أنك قدنو حدين واللي قلت كرسي كسغال كتبو كدهيا ولماذا هذا الباب باللود لبي الطبن باللود مالك دنبي نويرين هذا البشريين وروح حسن سوودني ما قمر لحي ما سمقوا من واقمتي قبل بالله سلام بالله اسكو حري عبد الله لو انه يوشك تمرقرن اسماعيل ابراهيم باكا شاغل انه يري مكاسي مقرن لكي دري ورد قرق قبسي وها أنا وها هذا الكوكو جوابين محوها وقرنينا إلهي وقرن وين بوكس ذا يقولي حقاكي ماذا حيصدق عليه واحد ما شاء الله ما كسر واحد الله والله وحده كما جرو وهذا الباقي يا الرميل dadka walaalka yaa la isku diray urubada yaa soo waday reedal abdilla kolku maalinki heshiiyay ma jira idaacada inaad ka maqasheen reedal lagu heshiiyay kursi baarlamaan waxaan ka tashanay siyaasadda wama ka qabnaa inaan heshiinay musharax anagana aan gadaal ka keeni doono hadalka ma dhagaysateen wixii asaga xasan u wadnayn u daadihinaynay afgaar sooqaad 12 qoys iyo ugaaskaan u geynay annagoo midkoo ayuu afgaar laga qaaday أحمد خيرو مالكي محمد داهي يا سيد ترتك لكن لسه يوها أنا صوبا هاي حامد عثمانين وخيرو لسه ما أكتر ولا عليك دارك لما يدي ويل بعد لسه خيرو أنا بدي أحكي كيف بعد يا لبين ذاك الطرق يا الإسكندري لكان لي شيء أحمد محمد عبدي لكان سيرد على سوقاتين أنا بدكوا أفكار سوقات بيلوجيين horta waxaan ina warsanaya afgaabo 15 sano u shiiniyahay muumin xasan baan lahayn 10 sano daahiye soo gale shantii haddaan dhacne haddana maanta daliilkeeda waxaan rabnaa inuu Ahmed Maxamed Cabdiqaar inuu soo gali aniga soo horkacay ree afgaabe abshir ma jahdin Ahmed Maxamed Cabdiqaar insha Allah uu soo gali Ahmed Maxamed Cabdiqaar ree afgaab ma soo qaadin reer afgaab 18 bilood bay raabtay ay fadhiyeen shanti qoys ee dalal Cabdillah fadhiday shanti qoys oo socota iyo maatay afgaab loogu yeer bay dhaheen afgaab baan u yeeray 12 qood urad afgaab soo qaado Maxamed afgaab qaada ninka hadalka aad u dhageysta waxa ninka la yiraahdo urad afgaab baa u hor qaaday 12 qoys baa qaaday aniga ugaaskeena certificate baan siiyay waan saxiixay certificate raada laga wadiyo waxaan rabaa waxa ani ligu hayso leeyahay raafka buu shalay kuna qaado kuna reebay intaan ku reebay ma wax baan qaadi karaa kaligi ma nin maralaan mu socda maradayda waa raafka
سوسامة أفكار حقوقنا صحيحاني ما وحكي بس أحمد ستة أفكار مركو قادان أنا جالس تاتفق شيء صحيح فالعوليهن وديرت بان جوناي عوليهن باقارس اسكو إما أفرت قبله وحال يرو وحان ربنا شيء مانك عوليهن علماء سقالك دبع عوليهن حسين إبراهيم برالي ودورتين سقالك دبع عوليهن علماء ضوضو الشيخ بولو وكجرو نينكي شامان ودورتين وعلماء أفقاب مديري كرام لبي يتبون ولادو أساقو هقامين يدل عبد الأوضياشي ستيرا للعابة إسلاقلين قوان بي سو غارين وينو كينين هدان أفقابنا هي شالي وان وداين دلال إنان لليس تاقين تشيقودين وان كسين للبا سنة مغنايين شيخ حسين إبراهيم برالي إيا لبي تمنكو أوضياشي قوان كودو بينو كينين أنك أفقاب هدان هي محالا كدو يدي كرنجرة sidii baan ku soo qaadnay shirkan aan idin dhigahayno waxa waayay awliyahan hadda ogeysiis way afgaab loo socdo awliyahan oo muumin xasan u sokeeyo wuu maqli laakiin waan u soo noqonaynaa kabtan iyo haamay waa reefgab waxaad ogaanaysiin annaga haddaan nahay reer afgaab axmed maxamed abdiqaar axmed sita loo yaqaanaan soo qaadnay خسارة إيه وسواسنا ماذا وهذا واتين الصغو ويل يرئ أو لدورنين أو ميل لجينين يريف قاب أنفع سجالك الدبع أوليان بو أنفع الصغو نين ميل لجيسنين لبويا يا مدوجش يا جارس ميل أوليان جو أو صواح كقبنين أما وهرمر جارسين الملو غير أفقابه وأنك أفقابه كل من بسعنا إذا كان إذن الله هنا دلال با u jawaabo oo afgaab soo diro u keentay gareed dalal way hadleen ninkii dalal oo hadal qabay uu aamusay madaxnimadan doolayno idinka warbiye la'aanta iyo iskuul la'aanta iyo masaakiinnimada asagoo raaciyada ninkii noo hagaajinayay oo maanta baarlamaankeena maxaa malaynaysid waxaa la rabaa nin kasta oo ree afgaab wiil iyo gabar guntiga dhabal iskaga siiyo ninkaasaan soo qaadnay hatta kambeyn lacag uma baahno nin walba diyaar ah noqdo reerti waxaan ka imaanay Gaarisa waxaan nahay reer afgaab wax naga maqan ma jiro 12 qoys ee reer afgaab iyo ugaaskanay kullu wahdillah waxaan ku soconaa 16 gaari oo min 5 qof 8 qof ku soconaa 8 qof waxay u socotaa hal message kaliya waxaan gudbinaynaa hal message bas ma aha wax labaad ma hal fariin aan gudbinaynaa fariin labaad ma aha fariinta aan gudbinayno waa fariintii walaalaha Dali Cabdil noo keeneen ma maqlaysaan fariintii walaalaha Dali Cabdil ay noo keeneen aan gudbinaynaa sanadkan 2027 reer afgaab wuxuu u tanaasulay walaalaha Dali Cabdil u tanaasulay wiilashii reer afgaab waa la reebay dalal baa u tanaasulay inay kursiga u tartamaan dalal markii ay fadhiyeen sanad iyo 8 bilood waxay noo keeneen hal wiil bay noo keeneen wiilkaas Axmed ay noo keeneen annaga oo reer afgaaba oo 12 jiliba iyo macal ugaaskanagi waxaan qaadanay wiilkaas ninkaas aan rabnaa laga soo bilaabo baahuuri ilaa meel kasta oo reer afgaab degan yahay inaan gaarsiino message-ka aan idin wadno waa Axmed message-ku laba maaha Axmed baan idin wadnaa message-ka Axmed baan idin wadnaa reedertiyo Axmed ma nala qaadeen haddii aad nala qaadeen reederto waad mahadsantihiin awliyahana kulay iyo muumin xasan oo tagay hadii la yiraahdo marka waxaan jecelahay in sida aad noola qaadeen inaad idinku ku sharfanaataan ani magacaygu Caada Maxamuud Gawe Axmed waxaan duqa reer Saalax waxaan idin sheegi rabaa annagoo reer afgaaba waxaan qaadnay ballantii ay walaalaheen Dali Cabdil noo keeneen waxaana qaadanay duqii ninkii ay noo keeneen musharaxa Axmed Maxamed Abdiqaar ayaan la qaadanay annagoo reer afgaaba waxaan kala rabaa halkan aan ka cadeeyo reer afgaab ma aha ilmo dugsi loo dhigaayo alfilkodhawe alfilhosdhawe maanta la barayo looma yeerin karo afgaab waxa uu rabo wuxuu garta ayuu qaadi wuuna qaaday moodi buu leeyahay raayi buu leeyahay odayaal buu leeyahay go'aan buu soo gaaray wixii ay walaaladii u keeneen buu la qaatay waana qaadanay waxaana reedertii oo maanta idiin keenay Axmed Maxamed Abdiqaar ma nala qaadeen odayaasha culimada gabdhaha dhalinyarada reedertii assalaamu calaykum aad baad u mahadsantiin saad noogu soo baxdeen
waad boqolkiiba boqol aad baad u mahadsantihiin waxaan rabnaa reer dheertiow inaan idiin sheega dadka dheerti deganow annaga laba nin oo reer dalale maana arkin haddaan nahay reer afgaab horta waxaan ka hadlayna waa siyaasad dadkii aabbaha ka ahaabaa meeshan fadhiyo meesha caafmaroorna uu fadhiyo cabdirashiidna fadhiyo geedi barrena fadhiyo bishaar xareedna fadhiyo cabdulaahi biryo fadhiyo cabdi cali guhaadsiiniya siyaasa uu fadhiyo nimiyow dad kaloo uu fadhiyo ibraahim dhuwow aadan oo dadka siyaasadda lagu dhalay nimiyow annaga inaan siyaasad ka hadlna waa yar foolxumo meeshan way joogaan siyaasadda reer afgaabna dadka u soo talin jiray way joogaan axmed maxamed bayna soo qaadeen annaga reer dalal cabdille yaa noo imaaday oo wiilkaa noo keenay waxaa noo keenay wallaahi bilaahi been idin sheegaani ani soo nuur mi 23 sanaan ani hadda siyaasad ku jira waana xishoonaya inaan siyaasad ka hadlo dadkii aan siyaasadda ugu imaaday ee reer dalal cabdille weliba qaasatan labada nin ee aniga nuur markaan ahay aan ka qaatay siyaasaddan axmed shita inaan qaato waa cabdirashiid iyo xuseen buraal cabdirashiid ninkii khayrow waday soomehen 10 sano markuu intuu noo imaaday reer afgaab uu hor imaaday waryaa hee waa labadeeda gacmoode 10 sanaan wax la doonahayee nasiibkiisuu wax ku waaye kanaan tijaabin rabaaye reer afgaab uu ila qaad u yiri hadalka soo celinaya muxuu hadalka soo celinaya war cabdirashiid ma nin ilaahay baa idinku dhaarshay cabdirashiid ma nin hadda shilin qaadan ba waa 80 jir wiilashiisii baa deeqa wuxuu cuniyo wuxuu xirto iska haystaa waa ninka quraan ruugay masaajidka kaga jiro ma cabdirashiid baa kala eexan kara laba wiil oo reer dalal cabdille oo kala eexan karo ilaahay baan ku wariyaa ma sheekh xuseen buraala keenay siyaasad sheekh xuseen buraal waa ninka 60 iyo xogaaga jiro waa ninka daaciga culimada wadanka u weyn Soomaali Kenya u weyn waa ninka ku jiro waa ninka daaciga kitaabadii u qoraa la akhrisanaya ilaahay baan idinku dhaarshay ma sheekh xuseen buraala yaa laba wiil oo wala adeer uu yahay oo kala eexan karo annaga waxaan wax ka qaadanay waa cabdirashiid xuseen buraal aan ka qaadan sheekh xuseen buraal dadka ugu muhiimsan odayaasha cid uu soo talin jiray waa kan reer dal laakiin muhiimadda ragga aan ka qaadanay axmed annaga inaan qaadano waa cabdirashiid iyo sheekh xuseen buraal waa laba nin oo reer gudwaaq dalal walaalaha iyaga weeyo ninkii ay dalal cabdille wax garadkiisii madaxdiisii culimadiisii isku soo raacday kaas waxa yaan qaadanay dalal cabdille ninkii maanta wax la rabo reer afgaab ahow waxaan codsani wiilka dalal cabdille la dhiso waxaan kala codsani cawliyahan hadalkaygu uu gaari waxaan ka codsani cawliyahan oo annaga ninkaas aan wadanaa fariinta hadalka waa media weyn gaari ilaa abshis la waafaj dheertu waxa maqashan annaga axmed baan wadnaa nabad baan ku wadnaa barwaaqaan ku wadnaa inaan soo gelinaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo kuuraha inaan siinaan rabnaa insha allahu tacaala labada wiil la sheegay labada waa walaalo waa isku cid waa labada isku xigtay mid aan lacab u qabna male laakiin waxaan qaadanaynaa keeriyada lagu noo keeno niman yahow reer afgaabow tol baa nala fadhiya cawliyaha ma nala jooga kuuraha kursiga anaga keli ma lihin waa nalala haystaa inaan soo gallaan rajaynayna ilaahay idamkiis cidda ninka dhashaan keena kii aan ka soo tagnayna cidduu ka dhashay kanna cidduu ka dhashay waa la wiiloo reer dalale ma kala jeclin kii dalal noo keenan qaadanay nala qaada shiitab nala qaadeen waad mahadsantihiin afkaab soonqaad baa socda afkaab soonqaad wiilku wiil afkaab soonqaadoo way dhisa waan ku baaliy walaalahda muumin xasanna waan inaan barino waan rabnaa laakiin maanta afkaab baan ku haynaa bishan sanadka cusub baa muumin xasan baan aadaynaa laakiin hadda afkaab soonqaad baan dharka u dhaqaynaa oo wiilka wuuna baryay waan soo qaad warshirkaa ma qaadeen annaga reer afgaab haddaan nahay 12 dab oo weli reer afkii aan ka reebay ana horta reer afkii 4 fac bay dhaleen anay dhaleen awooway baa dhaleen awooway labaad bay dhaleen kiid afraad bay dhaleen maan reer afgaab oo dhamar kula jiraan namayow dhageysta ninkaas raggii iga horreeyay baa hadalkii waxaan kala ku daray malaha ninkaas asagoo wiil yar ah oon madax ahayn oon baarlamaanka joogo muuna deeqa war axmed meela qaadeen namayow reer afgaabow war meela qaadeen anigu waan qas reedheertu aniga maalin waan soo kacay ugaaska ay soo diray meeshan aan imaaday waan warsiiyey raggii caaqiliintahayd
waxaan ku reer afgaab baan ugu soo socdaa 12 qoys mar hore wax ka dhamaaday haddana wuxuu qaatay inaan la qaadano bas ay maanta way maar rabaan soo sidaa ma ahayn dheertu haddaan nahay mar hore aan warramay waxaad qaadateen waan idin la qaadanay Axmed Maxamed Cabdi waan qaadnay madaxuuna noo saaran yahay meesha ugu dambeeyana kursiga waan la tagaynaa afgaab assalaamu calaykum intan oo afgaab baan soo qaaday intan oo afgaab waxay soo qaaday waan qaadnay annagan intan oo afgaab waxay soo qaaday waan qaadnay aniga horta nafsadayda ahaan wiilka asaga hadda waa la wada leeyahay iyo Cabdi Rashiid meeshay ruumad ay lugaha ka gashadaan ba ka gali أنا وحلينا عثمان إسحاق راجع حسن وحنا هنري ملعب وحنا شيء وضياش الدل عبد الله وحنا شيئين أو ميديا صور لجان إنه دل عبد الله هالمدي رأف قاب إن لحق حكتو أنت جيل سكوك رأف قاب أنك ماشى كان معاي رأف قاب ويل بانو جينا وحنا نوقع مرقاتي وحكاه أنت أمد هذا ميديا وحكار كيس وحكتين هو الرد ويلي جيس رأف قاب ومعلوقات كوديو يلي أنا بتكرر على حنا سال waxaan waa reef ka hada socdo boqolin waa dhan anaga reedal Cabdille 18 bilood baan fadhinay oo culuma iyo odayaal baan ahayn culumada 8 bay ahayd Allah u naxariistay waxaan dhintay ninkii ahaa Sheekh Maxamed Daawud u duceeya inuu Ilaahay u naxariisto ninkaas ka baxay intaanadi kale nima yar oo laga baxay moog intaanada kale waxaan soo qaadanay Axmed Jita reer afgaab baan u keenay reer afgaab lagu qaatay reer waan kala reebnay Axmed Jita baan soo qaaday reer afgaab baa wadi iska leh reer dalal uu keenay reer afgaabna reer dalal uu ka qaatay soo idiimaana sheegin maanta nibaa wuxuu yiri Sheekh Xuseen إبراهيم برالي يا عبد الرشيد ونيكا أبيس محمد عبد النور دغري هذا لها نيكا كلنا داعيها وهو نوكين عن قادرنا وحن قادرنا رأي أفكابان كابتن يدوب لي مقالة لدانا وبس كده أفكابان تجي وحن نقول ما أنت وحن ربع وحن كان قادرنا أنا لك نلوكين دلال عبد الله كقادرنا صرنا لمين قادرين أنا وقاسه يعني جاري كان ملينتي كسر راعي يعني دبل كتير جاري الظاهر رفته ويلا دور رأف قابل رأ ورسمور رأ خير عي ودي تقول ما أمريكا قال يحفظ يقول نروح رفته ظاهر بمشى كقش أنا يا محمد داهي أمريكا سيتي إم بي يا جاري قال لسعوني ويلك حفظ اللي يقول رفته يوها ويلك سويل دلال عبد الله مهن خير وصباهن ما أنت عبدي غير أفكار ما مرهد على الوقتي ما الدم به شيء بعوضه ما أنت محل يقول أبين اللي يقدر يكبر ويعلش إيش أنا ما يو وربع حاسق فواي وربع عليه مغوري ورهانتي هروب كاي كوسن تاي كودشا ورويل كوالا لا تنجر أفكار صنقات وكذا شدال عبد الله وكذا شيء ما أنت تصرف عوض ولكن هو ترنسوله أو صادسه أو أنا هو شرف أنا نيروبي وأنت يا فرعون رأف قبل هذيس يعني جابن كان كوينا لا ولا له ويلش على هذا واه أنا قرب شيء ويلش عن كلا رابنا وهي متجيبني كي إنجنيا ياها لما لو ويل بعن رابنا أو فرع معلنا صادسنا يا أجر هذا الكلام إلا مغلان ربع رجيا بالعالم ما يسوي حفديه فهايري جاء من كرار في كابه محبوب معلن محمد جابو وإلى الله هايري أنا أقول وحشاهد إيه ومثل إلى الجوج ومركان وين إلى الجوج إنه لما أنت هذا الخدنا لدهنا يعني كجاش عمله محمد هو هذا ناو تضربني قد كجري دكتور هاني دكتور داهية كجري وها كجري نيك بيس كنوعه بعمل سكرتري آدم عبد الله بكجري آدم فرس وها إلى جو ومالين تفدي هبين كأفر تعبين أويناي إن لها عيب ترين أفكار إلى أستر إنجنير محبوب معلم محمد وحسايد شيء محمد هو يا محمد داهية الله بدو نركتا محمد هو كاونتي ودن جارسة كاونتي دايركتا كه محمد هو هذا
dadka inuu runta isku sheegaa la rabaa 18 cawaan Nairobi jiifay oo maxbuub macallin aan ku oynaayay oo aan dhahayay wuxuu yiri markaan ila walaalow khayrow maanta inaad reebtaan rabaa wuxuu yiri khayrow lama reebay labadooda waa la reebi oo yaa la dhisi markaan khayrow reebo faarax macallin baan dhisaynaa buu oo adi German raafka baa ka dhigtay ma awliyahan baa ka dhigtaan hadalka aad u dhageyso waxaan rabaa inuu awliyahan maqlo war waxaan lagama shaqaynin wiilasha lama kala reebin dadaal lama muujinin hanti laguma bixinin horta yaa la dhihin anaga raafkaaba markayna soo gaartay aniga ugaaska intaan u shaqaatay oo gaaris ka kacay oo Nairobi tagay oo 18 cababariyo oo 7 nin oo dibadda ku maatay dalka intaasaan oyna aabta raafkaaba suraan lahaa maxaa loo leeyahay juhdi laguma bixinin oo dadaal laguma bixinin oo wiilasha lama kala reebin maxaa loo leeyahay ninka khayrow hadduu yiraahdo war khayrow aan dhisno oo Ahmed aan reebno ani ma wiil dalal Abdullaahi kale isa raafkaaw soo duqoodi mihi soo jaamaka siyaasiga ma markuu Ahmed reebo khayrow la reebo nin aan dhisno uu yiri aniga asoo waa kala tagnay waxaan ilaahay waka ilmi soo kaamo dhulkina waa kan shalay waxaan dhisay khayrow maanta Ahmed baan dhisi aniga adiga salaan maalinta baa isku qaad waxaan rabaa inuu hadalka maxbuub macallin Maxamed maqlo waxaan la ugaasa gaariga u fuulay inuu wiil muumin xasan oo awliyahan oo reer afkaabe oo asagoo hayadiisa arariyo wato tolkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisa baa faa haddaan moodaysiin khayrow Cabdullaahi inaan ceeb u qabo maxaa Nairobi maxaa loo jini saaxiye maxaa aroos baan ahay sanca markaan bari Nairobi waxaan waaday ficilka raafka iyo walaalnimadii dhalashada khayrow iyo Ahmed yaan laga dhigin dad maanta isku horeyso oo maanta kala cadoosan bari haddii maanta la waayo bari lama helay shalan soo dhisaa maanta maxaa ka duwe reer afkaabow xumaanta la joojiyo awliyahan ma qabo afar nin oo awliyahan oo kala kursiga dhadhaab u taagan nin reer afkaabe oo nin awliyahan dhalbaaxa maxaad maqasheen isaganimo maxaa wiilasha reer afkaabe reer dalal min diyaha la isku qaadan waa la isdili ugaaska askar qaatay kanuu suubiye war askarta yaan u qaadan hadduu hadda ku reer dalal toori geli ma askar baan qaadan soo ugaasu mihi soo kama dhalanin soo gogashooda kuma jiri war xumaantaa ma jirto war haddii la kala hari waayo waa la tartami waa la kala qaadi waa la isla dhashay waxaan idiin sheegi Axmed Maxamed waa nin gadmaya aad noo keenteenna khiyaarti noo keentay way ku mahadsantihiin waad noo soo xusheen Axmed waa nin gadmaya waay nin maaha hadda isbara ama dheertu la bara ama anagna la bara ama ka farme maaha wuxuu galo iyo wuxuu ku daba aragnay waan aragnay wuxuu yahay waan ogaanay aniga ahaantayda jecel ahaantayda abaal bay u leeyahay hadduu bahir u baahtan ha imaado abaalka aanu hayo iyo waxaanu hayo chairmanka markhaatiigani abaal bay u leeyahay ilaaha barakeeyo allah barakeeyo waa khayr soo galay khayr allah siiyo ilaahay idankiis khayrka allah wabajiyo ilaaha naga aqbalo waan idin sheegi Axmed Buula Samaaki ilaa iyo Dobley waa ninka gadmaayo waay nin hadda raafka bumbuliyo nin baa wadnaayo wadii ma aha عندي جبرائيل iyo kuxudiga waa laga yaqaanaa wuxuu aad baa loo garan waa ninkan ba asaga dadkisbare wixii ku barayna waxaad anaga ku doorana maahan juhdigiisa iyo kartidiisa iyo cilmigiisa iyo wanaagiisa wuxuu ku keenay cadaalad buu ahaa wuu soo geliye ilaahu raabka lugaha u gelin duqaydaan wada daalay waxay dooni u yeel marka waa mahadsantihiin alxamdulilah marka reedheerta haddaan nahay waxaan idinla qaadanay wixii aad noola imaateen waadna mahadsantihiin dhammaan axmed baad noo keenteen axmedna waa idinla qaadnay waadna mahadsantihiin marka ducada allaha noo aqbalo asagana waa u ducaynaynaa waana ducada waa fidin doonaa marka
ilaahay ha noo dambi dhaafo waxaad wadiinna allah idinla qaado ilaahayna maaragtay ha idinku guuleeyo waxa aad maaragtay waxaad doonaysaan allah aad u daasheen allah idinku guuleeyo annagana ilaahayna naga aqbalo